intii ka dambeysay sanadkii 2020 dunidu waxay u sii jihaysatay dhinaca dagaalka iyo holaca bal u fiirso Yurubtii nabdooneed ee barwaaqada ahayd muddo ku siman 3 sano waxaa ka socda dagaal u dhaxeeya laba quwadood oo awood leh waa Ruushkii asalkiisii hore Sofiyeetka ahaa ee burburay iyo waliba NATO ama Ukraine oo ay taageerayaan dawladaha NATO maanta waxaad arkaysaa in midna uu guulaysan la yahay laakiin midda kaliya dagaalkooda uu sababay ay tahay in maciishada adduunka ay adkaato dhawaan muddo ku siman sanad kaliya waxaad arkaysaa Falastiin oo dagaal xawli ah uu ka socdo sidoo kale la dulminayo masaakiinta reer Falastiin oo isugu tagaan reer galbeed oo dhan iyagu waa kuwa iska caabinaya oo awood muujinaya sidoo kale aan isu dhiibin cadawga ku soo duulay dalkooda iska caabinta iska ka caabinayaan iyo gaaladan u arxamaynaya waxay keentay in dagaalkani noqdo mid dheeraaday lagu kala guulaysan waxaad arkaysaa xulufaysi dunida ka socda bal u fiirso Iran oo xulufaysi la Ruushka Kooriyada Waqooyi iyo China waxaad arkaysaa Mareykan oo dhinaca kale ka soo horjeeda oo Israa'iil iyo NATO wata iyo waliba wadamada midowga Yurub kaasoo raba inuu mar uun weeraro wadanka Iran waxaad arkaysaa China oo raba sida Ruushku ugu duulay Ukraine inuu isaguna Taiwan ugu duulo u qabsado dhammaan sansaanta dagaal ee colaadeed ee adduunka ka socota waxay sii fool xumaynaysaa wajiga iyo rajada amni ee dunida ilaahay tiisa ayaa qoran laakiin indho wanaagsan ma muuqdaan bal Afrika eeg iyo hareeraheena Soomaali ahaan Ethiopia wad u jeedaan jabhadii Faano ayaa asaba ku sii qulqulaysa oo xoogaysatay bal Suudaanta agteena eeg waxaad arkaysaa ciidankii dacmu sariic iyo ciidankii dawladdu inay iskumaadayaan oo meel xun arrinteedu marayso inkastoo dawladdu ay gacan sareyso waxaad arkaysaa wadamo badan oo waxa weeyaan Afrika oo dagaal sidaas la mid uga socdo taasina waxay muujinaysaa indhaha xun ee caalamka maanta maciishadu waa qaali bini'aadanka oo dhan waa cabanayaan sababtoo ah waxay garan la yihiin waxa weeye marka laga yimaado inay dad islaam oo muslimiin ay noqdaan imtixaanku xagga rabbi ka socdo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wama asaaba musiiba idima asiibto ilaa waxaad ku kasbateen gacmihiina wax badanna waa leedinka cafiyey dadka qaar baa isweydiinaya oo isle goormuu adduunka ka soo rayn doonaa oo wanaagsanaan doonaa anigu waxaan isleeyahay aakhiru sabaan baa lagu jiraa saacadii qiyaame ayaa soo dhow inay ka sii darta mooyaane ka soo rayn ma laha laakiin qadarka alle ayaa wax walba ka weyn